Horey ma iskugu aragtay calaamadahan iftiinka oo ku dhiba hal qayb ka mid ah madaxa oo aad kuu xanuuna, labada il mid ka mid ah inay aragtida ay yaraato, iftiinka uu ku dhibo, mararka qaar inaad dareentid matag iyo labolabo. Calaamadahaas haddaad isku aragtay maanta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka hadlaynaa migraine-ka iyo indhaha maxaa calaaqad ah oo ka dhexeeya hadduu Ilaahay yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha qaaliga kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka indhaha. Maanta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka hadli doonaa calaamadihi aan soo sheegnay. Migraine-ka maxaa la dhahaa, maxaa sababa, calaamado noocee ayuu si gaar ah u leeyahay, sidoo kale indhaha sidoo u dhibaateeya. Waxaan kaloo ka hadli doonaa maxaa lagu xaliyaa oo lagu daaweeyaa. Intaasba waa ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Mid u horeyso, migraine-ka waa nooc ka mid ah madax xanuunka. Markii caafimaad ahaan la qeexayo, migraine-ka waa nooc ka mid ah madax xanuunka, waa type of headache taasoo ah mataqaanaa qayb ka mid ah markii la kala qaybinayo madaxa, qayb ka mid ah sanka markii laba qayb loo kala qaybiyo, qayb ka mid ah in uu oo xanuun qofka uu ka dareemo. Tusaale ahaan inuu isha ay xanuunto, indhaha inay xanuun, dhegta inay xanuunto, hal qayb ka mid ah madaxa inuu qofka xanuuno. Maxaa sababa markii la qeexayo sabitaanka? Saddex mid ka mid ah waxyaabaha sababa migraine-ka wuxuu ka socdaa dhanka jirka, hal qayb ka mid ahna wuxuu ka imaanayaa dhanka banaanka ah. Saddexdana markii la kala qaybinayo, waxa ugu badan ee sababa waa midka banaanka ka imaada markii kale loo fiiriyo saddexda kale. Mid u horeysa waxyaabaha sababa migraine qof inuu dareemo, hal qayb ka mid ah isha macal dhegta macal madax dhan hal qayb inuu xanuun ka dareemo. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah abnormal brain activity qofka inuu ku dhaco. Tusaale ahaan shaqadii madaxa inuu mataqaana abnormal uu noqdo, qaabka u shaqeynaysa maskaxda. Tusaale ahaan inay tartiib u shaqeyso sida normalka laga rabay inay ka hoos marto, ama in abnormal activity si mataqaana xad dhaaf in qofka maskaxdiisa u shaqeyso. Madax xanuun hal qayb ka mid ah wuu sababi karaa oo migraine-kaas wuu sababi karaa. Sidoo kale waxyaabaha uu ku lug leeyahay markii oo mataqaana la qeex oo calaamadaha laga fiirinayo waa neerfayaasha madaxa mataqaana qoodiya, neerfayaasha madaxa qoodiya in involves muscle oo ku lug leeyahay pathway-ga mataqaana marinka neerfayaashaas. Tusaale ahaan marinka neerfayaasha inay mataqaana narrowing ay noqdaan, inay yaraadaan, way sababi kartaa. Sidoo kale waxyaabaha kale ee effect gareeya midda saddexaad ee ugu dambeysa ah waa inay effect gareyso blood flow in brain. Dhiigga markuu soconayo, qulqulka dhiigga neerfayaasha markay qaadayaan, haddii waxaan soo sheegnay neerfayaasha in mataqaana ay inta badan ku lug leeyahay maritaanka neerfayaasha, laakiin wuxuu effect gareeyaa middan saddexaad oo dhibaateeya xididada neerfaha in mataqaana markay dhiigga geynayaan in uu yareeyo. Tusaale ahaan midda saddexaad midda afraad ee banaanka ka imaanaysa eena ugu badan waxyaabaha sababa migraine-ka waa qofka in uusan seexan, uuna wax isticmaalo caffeine. maadaama la dhahayo caffeine-ka coffee-ga qofka inuu zaid u isticmaalo waa wax ugu badan markii laga reebo saddexdan, waa wax ugu badan migraine-ka sababa. Tusaale ahaan qofka inuu seexan 24 saac habeen iyo maalin oo kaamil ah, qofka inuusan seexan, hurdo ku filan inuusan seexan. Midda labaad qofka inuu isticmaalo caffeine aad u badan, kafee aad u tiro badan oo isticmaalo, ugu badnaan waqtiyada ugu badan oo qofka ku sababtana waa qofka habeenkii waqtiga 2 saac wixii ka dambeeya 8 saac wixii ka dambeeya inuu isticmaalo. Maxaa calaamad ayuu leeyahay oo si gaar ah u leeyahay migraine-ka? Calaamadihiisa waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo matag, inuu dareemo labolabo, iftiinka inuu dhibo, hal qayb ka mid ah isha inay iftiinka dhibto, hal qayb ka mid ah madaxa inuu xanuuno, hal qayb ka mid ahna isha inay aragtida ay yaraato. Calaamadahaas ayuu si gaar ah u leeyahay. Ugu dambeyntii indhaha muxuu dhibaateeyaa? Mostly wuxuu sameeyaa indhaha wuxuu dhibaateeyaa aragtida qofka ayuu yareeyaa. Midda labaad xigto garaada ayuu sababaa, qofka inuu garaada xirto ayuu sababa. Mostly waa haddii xaaladii soo laalaabato, aragtida ay yaraato, qofkii madaxa mataqaana hurdo la'aan inay ku filnaato, xaaladaas ay soo laalaabteen wuxuu sababaa aragtida qofka inuu yaraato oo okiyaalo uu xirto. Sidee lagu daaweeyaa? Daawadani aad iyo aad ay u fududahay. Medical qofka daawo oo kaniin uu qaadanayo waxaa kaga muhiimsan lifestyle-ka qofka inuu wax ka bedelo. Tusaale ahaan inuu sameeyo cold decompression, madaxa in ayuu sameeyo madaxa cold decompression oo neck and head inuu sameeyo, madaxa iyo qoorta inuu qofka wax qabow saaro
qaboobitaan tiro badan uu ku sameeyo wax qaboob inuu saaro. Midda labaad qofka inuu isticmaalo biyo badan, wuxuu biyahaas badan qofka ka caawinaya inuu dareemo labolabo iyo matag tiro badan ayuu qofka ka caawinaya. Sidoo kale inuu ku nasto meel mugdi ah, rasti inuu sameeyo in dark room, meel mugdi ah oo qol ah oo qaylo badan aysan jirin qofka inuu sameeyo. Midda saddexaad ee ugu badan, midda afraad ee ugu dambeysa ee mostly lagu daaweeyo waa in qofka uu isku dayo inuu hurdo. Waa loo leeyahay qofka inuu isku dayo inuu hurdo. Tusaale ahaan mararka qaar marka qofka uu shaqo badan uu qabto, waxyaabo badan uu sameeyo, qofkaas normalku wuu hurdaa. Laakiin marka qaar dadka qaar aysan shaqo aysan qabanin, hurdada inta badan way raadiyaan. Si dadka la mid ah dadka shaqeeya marka laga reebo. Tusaale ahaan qofka waxaa la rabaa haddii xataa oo qofka hurdo aysan haynin inuu isku dayo inuu hurdo. Tusaale ahaan inuu waxyaabihii oo mashquulinayo mobilka inuu iska damiyo qofka, meel oo mataqaana sariirta inuu tago, mataqaana uu ku nasto. Taas qayb ka mid ah hurdada waa normalka gadaal dambe ka imaan doonta. Laakiin qofka hadduu sariirta uu tago oo mobilka dad isku sii mashquulinayo, hurdo normalka ma imaanayso. Waxaan rabaa muddo 30 daqiiqo ka hor mobilka qofka intuusan seexan inuu iska hareeyo oo si hurdo nadiif qofkaas habeenka uu helo. Ugu dambeyntii medical treatmentiga loo sameynayo qofka waa qofka inuu ookiyaalo xirto, iftiinkaas tirada badan oo dhibayo inuu qofka ookiyaalo ka xirto oo dhakhtar indho u tago. Midda labaad xanuun baabi'ina inuu isticmaalo, xaalado qaar inuu isticmaalo. ugu dambeyntii waa idinkaga mahadcelinayaa dhegeysigiina. Wixii su'aale dhanka comment inoo qoro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.